عادي aan ugu faraxsanahay munaasabadan inaan dhowr mowduuc aan kaga hadlo run ahaan mowduuca waxbarashada guud khaasatan waxbarashada sare iyo say ku bilaabatay wixii lagala kulmay isgaarsiinta run ahaan sharikad caan ah oo sharikada Hormuud ay ugu weyn tahay ay ahayd oo hadda 20 jirsatay ayaa waxaan leeyahay qayb muhiim ah waxay ka qaaday communication-ka wuxuu qayb muhiim ah ka qaatay dadka inay wax soo gaarsiin karaan inay iska warqabi karaan caafimaadka inay soo warsan karaan kolkii banaanka loo dhoofayo daa'iraduhu inay shaqeyn karaan lacag in la soo diri karo si dhib yar oo ruux America jooga ama Yurub jooga ama Asia jooga oo dadkii isaga dhalay iyo dadkii la dhashay iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadii uu si dhib yar ugu soo diri karo sharikadaas run ahaan waxaan isleeyahay namuudaj waxay u tahay sharikad badan oo caalamka jooga ayay tusaale u tahay waa huba dadka sameeyana in badan waa aqaanaa si wanaagsan waa huba dalku intuu burburin dalkeenu tabar daraa communication-kiisa isgaarsiintu way tabar darayd laakiin dadku markay isxil qaameen oo hadda sharikadan Hormuud oo kale ay samaysantay run ahaan waxay ina tusisay sida caalamka waaweyn u shaqeysan karo inaan u shaqeysan karno saasay marka miisaal waxay u yihiin marka dalal badan oo Afrika maanta inagii oo dawladii dhexe muddo dheer inaga maqnayd inay sharikaadkeenani tartan caalamka ay kula jiraan dalal badan oo Afrika ay ka hormareen waxaan tahniyad xoog leh run ahaan u dirayaa sharikada Hormuud oo 20 jirsatay طبعا وين ما أهل 20 سنة وحنا رجعنا إن شاء الله بقلال سنة إني سيجرت أي رجعنا ناس شركات العالم كوكلة ساسا أنا قال مركز جامعة المقدس وكشة كينني إلى يوم الدين رهان أيان إلى قيامة أكاد عيسو ما أصلا إني جرتال ربا سد رادي وحال ربا administration كأما معمول كشركات كينا يا معمول كجامعات كينا يا معمول كدولة دينا إلا حوجيو وعالم كأن كبرنه sidii boqolaal sano u jireen sidii inaga la inooga bartay waayaha qaarkood jaamacad hadda Azhar kamid tahay oo yani taqriiban wax kun sano ku dhow sii jirtay 700 sano yani umriga muasasadku umri gaaban ma u baahna waxay u baahan yihiin kaliya maamul saxa si loo hubsado ruuxii soo asaasay iyo dadkii ka soo shaqeeyay bari ama in badan way dhimatay in kale way dhimanayaan waxa la rabaa laakiin farxadan maanta aan joogno inay ilaa yawmidii socoto waxaan aad ugu faraxsanahay inay maanta boqolaal ruux oo jaamacaadkii aan sameynay iyo iskuulaadka aan sameynay ay Hormuud maanta ay shaqo siisay ayna tahay sida aan qiyaasayo taban sharikada ugu shaqaale badan marka la yiraahdo run ahaan marka loo yimaado dalkeena sharikada ugu weyn ee taban qiyaasaya oo shaqaale marka la yiraahdo oo hadda sharikad 10,000 oo ruux si dhib yar u shaqaaleysay oo niyadahay aad uma xusuusto laakiin inta kale waxa rajeen inay ku dadaan saadaradeed waxaan u hambalyeeynaa taaniyadan aan u dirayaa run ahaan odayaashii soo asaasay iyagoo aad iyo aad loo wada yaqaan run ahaan odayaasha ugu waaweyn oo laf dhabarka u ahaa waxaan u tahniyada dhalinyarada shaqada xoog leh run ahaan ka haysa waxaan dhammaan waagi la asaasayna oo soo taagnaa 20 ka sano jirtayna oo soo taagnaa waxaan marka aad ugu faraxsanahay waxbarashadii aan qaybta ka ahaa meeshay shaqada ugu badan ka hayaan bay kamid tahay marka taana waxa weeye ahsaan aniga intii waxbarasho ka soo shaqeynaysa loo sameeyay run ahaan baan u qaadanaynaa isku duubnideennana waa qadiyo muqaddasa wa taawunu 'ala al-birri wat-taqwa wa la taawunu 'ala al-ithmi wal-'udwan sidaas waxa la marka in la isu wada kaalmayso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 20 sano ma insha Allah boqolaal sano insha Allah yisi jiri doontaa kulligeena inaan isugu tagno oo ajirkeeda iyo abaal ajirkeeda inaan yawm al-qiyaama ka faa'iideysano generationadeennana aan ku dhisno intaasaan ilaahay ka bariyaa aad baad ma santiin wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh